dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan wadamada khaliijka iyadoo sheegtay inay ka walaacsan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa wadamadaasi. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay ku baaqaysay in khilaafka lagu dhameeyo wada hadal iyo isfaham siyaasadeed. mowqifka dowladda Soomaaliya ee ka qaadatay khilaafka dalalka khaliijka ayaa ah mid cad oo ay ku muujinayso inaysan dhinacna la safnayn dowladaha khaliijka khilaafka u dhaxeeya. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka xuntahay ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kana walaacsan tahay khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhaxgalay dowladaha Carabta ee walaalaha ah. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dhinacyadaas ugu baaqaysaa in khilaafka lagu dhameeyo wada hadal iyo isfaham iyada oo la adeegsanayo ururka jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka. dowladda Soomaaliya oo xubinka ururada jaamacadda Carabta iyo iskaashiga Islaamka waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato sidii xal loogu heli lahaa khilaafkan diblomaasiyadeed ee soo kala dhaxgalay wadamadan walaalaha ee khaliijka. Cabdinaasir Maxamed, Telefishinka on Cable, magaalada Muqdisho.